Khaatumo dhulbahantaa aasaastay wixii loo aasaastayna way ka baydha sabab kastaaba ha kalifto ha loo kala dambeeyo dembiga in badan oo hadeer wixii dembigu ka dhacay wax ku lahaa haba ka soo horjeestaan oo hadeer ha yidhaahdaan anagu beri baanu ka nahay midba meel ha kaga hadho haddase waxay ku dambeysay waynu ogna waxaan waxa hadalkaygu uu yacni ujeedadiisu ay tahay waxa weeyaan Hargeysa iyo arrinta ka soo baxday ee 10 qodob ee la yiri Khaatumo iyaba ku heshiiyay Somalilnad inaan waxaan ka qabo ka hadlo waxaan ka qabaa waxa weeye dhulbahantow war Khaatumo soo dhaqnayd oo jirtay oo la isku raacsan yahay waqti hore inuu ku dambeysay markay dariiqii xoreynta iyo midnimada ay ka leexatay Khaatumo ayayna ku dambeysay intii ka dambeysay qasaawo salal iyo dad siyaasadooda iyo dadnimadooda la kala qaybinayo oo noocyo badan oo tactic iyo dhaqaale ahba loo adeegsanayo ayaynu ku sugnay anigu waxaan ahaa dadkii ku talin jiray war Khaatumada garabkaa ku socda Somalilnad ama Khaatumada Somalilnad bay ku socotaa markaa isku garab bayba ahaayeen yeenan waxbaba ismashquulin inta ay ku libdhaso aynu waqti siino waliba waa waqti dhow inagu aynu nabadgeliyadeena iyo dadnimadeena ilaashan markay ku libadhana waxay la mid noqonayaan qofkii Somalilnad geli jiray hadda waxaad moodaa inay tii muuqato waxa kale aan xusayaa waxa weeyaan dhulbahantuhu ama dadku ama intii ilaa dalka burburkiisu dhacay malaayiin qof baa Somalilnad galay sababta waxa weeye system ma jirin dawladii Soomaaliyeed way burburtay dalku wuu iska burburay maamul ma jirin Puntland ma jirin cid kale ma jirin waxba ma jirin qaabkii uu markaa jiray iyo sistemadii jiray hadii dadku markaa waxba sameeysan waayeen dawaba iska iman kartaa in dad badani ay meelaha iska tagtagaan la isku mana caraaran karo waa wax iska jiray laakiin may jirin qof yiraahdo dad iyo dunyada halkan aan nahay oo khasab baan ku nahay dabeedna kuwa Somalilnad ee beesha dhexe ay ugu soo adeegaan oo ay kula shaqeeyaan oo ay ka iyagu isku ay kuwa iyagu ay isku soo hor fadhiistaan sidaas wax yihiin may jirin nin mas'uula oo mas'uul ay ka dhigtaan qolada Somalilnad nin kale oo siyaasadooda ka hadla intuba adeer way tagi jireen qaabka ay wuxuu socdaanse hawe dalkii iyo dadkiiba annaga boorsadan ku sidno waan soo pick up garanay waa kuwane idina waxa tiraahdaan idinka gudoonay waxa kuwan loo keeneen mooyaane wax kale arlada kama socon karaan ama kama shaqeyn karaan runtii waxaasi wax dhulbahantana aqbali kara maaha iyagana ka socon kara maaha Faysal Ali Waraabe in dhulbahanta isu dhiiba iyo Sacad Ali Shire waa nasiib darro aad u weyn wax shaqeynayana ma dhulbahantana isma dhiibana ashqaas ay waxa ka shaqeyso waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah Faysal Ali Waraabe oo caawa la taagnaan miidiyaha macna qabiil oo qabiil kale ku eedeynayo oo Maxamed Siyaad Barre ku caayayo oo ilaa Kismaayo ilaa Garoowe ilaa Farmaajo oo xamar jooga oo qabiilinimo ku sifaynayo oo
ilaa kilinka shanaad qabiilinimo ku gaadhayo oo uu leeyahay waa laynoo tashaday ee istaaga isaaqow bal hadda cidda intay tala ula tagtay tidhi war taa laydinku tashaday baanu ka soo horjeednaayoo lama qabiil nihin sida aad qabaa'ilkaa uga soo horjeedaan baanuna uga soo horjeednaa oo idinkaanu tiina idinku waafaqsannahe nala garab gala oo yaanay wax isweydiin oo yaanay shiri oo yaanay wax kale ka hadlin oo yaan gaadiid usoo gelin oo yaan diyaaradi usoo gelin oo yaanay airport yeelan oo yaanay waxba u kala socon oo yaanay communication system yeelan bal dadka kula shiray yacni qiimaha ay dadnimada dadka ay ka soo jeedaan ay ku yeelanayaan waxa weeye inuu qof waliba uu dib wax isaga weydiiyo waxaan qabaa ninkii nidaamkii khaatumo ee madaxda ahaa ee shaqaynayay aaminsanaa nidaamkii wuu leexday qofkaasi ha aamino oo dib ha isugu caqli celiyo oo ha aamino in waxa maanta shaqayn karaa uu yahay wixii dalka iyo dadka iyo sharaftooda dib loogu soo celinayo wixii waxaa khaldamay ee wixii la rabay in ay sharafteena iyo dadnimadeena duulaan ku yihiin la rabay in la iskaga celiyo wixii waxaa rabay haddiiba ay u adeegeen kuwii mas-uuliyadda hayay war qofkii ku raacsanaa waa inuu fahmaa inuu dib uga soo noqon karo waa inaanu cuqdad ka qaadin inuu yidhaahdo intaasaad tan taagneed ama habkaasa boodgaraynaysa ama cid adiga ehelkaaga ahoo aada isku dan tihiin baad isku hayseen waxan dee cadaabtana ha kula gashee kusii soco anigu waxaan ku talinayaa war ha kusii soconina aynu samayno inaynu dib isugu tashano support garayno kana dhabayno wiilka yaree sacad muuse iyo faysal cali waraabe hadalka ay ka leeyihiin hargeysa ee ay leeyihiin buuhoodla lagumana shiri karo diyaaradina kama soo degi karto intii kale dalkeena ahayd baynu rabnaa sidii aynu uga xoreyn lahayn inaynu sababteeda iyo shaqadeeda galle inaynu ka dhabayno inaynu ku shirno wax ka soo saarno aynu wada leenahay dalkeena inta maqanna aynu ku xoreysano sharafteena iyo dadnimadeennana aynu dib ugu soo celino rumaynana innaga teenu inay shaqayso iyo rabitaankeenu beeninana inay ay wadaan qabyaaladda iyo isirla dagaalanka iyo qayb iyo xukunta iyo wixii lamid ah inaynu beenino oo realitygu uu noqdo inaynu dad qarana oo dadnimadooda iyo qarannimadooda u tashan kara inaynu nahay kana gungaadno inta ugu badanaan anigu hadeer caawa media usoo galay waa intaa wax allaala iyo wax ka shaqayn kara ama la odran karo yacni waxa weeye anigu waan aad baan u jeclaystay 10 qodob ee meesha laga soo saaray sababta 10 kuwa waxa weeyaan qofkii caqli leh dhulbahantii wuxuu wax ku fahmi karo aynu wax ku fahan 10 qodob kuna fahanno inaynu ogaano kala qaybsanaanteeni sababtii kaliftay resultkeedii ama yacni ujeedadeedii maxsuulkeedii ugu dambeeyey inuu taa noqday inta ugu badan ee aan caawa halkan dib ugu soo noqday waxa weeye intaa waa niman yahow dib ha loo tashado waxa la isweydiiyo aragtida iyo garashada kor ha loo qaado aynu sidaa fahankeeda yeelano kana dhabayno shirka buuhoodle
loo ballamay ee dhulbahanta ku ballamay inaynu ka dhabayno reer buuhoodlowna u heeliya shirka magac iyo sharaf intaasa idinka hadhay magac iyo sharaf iyo qiimo hore waad lahaydeen arrintaa nabadgelyada sidaad ku dhamaysateen arrintiinuna ay noqoteen aad ku dhamaysateena waxa weeyaan qiimo dadka badankiisuba aanu lahayn oo aad dheertihiin ku dhameeya intaa soo dhaweeya isku wada raaca wixii diidan qanciya idinku aan torture garayn ama aan khasbin ama aan ula iman inaad tidhaahdaan yani sidaasay noqonaysaa qanciya caqli ha la isku qanciyo runtii intaasaan caawa kaga baxaya wixii haddeer ka bilaabmana waxaan u malaynayaa in uun ka hadalka arrimahani ay bilaabmayaan sababtoo meeshii ugu dambeysay bay soo gaadhay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu